Asalaamu calaykum asxaabta janalka ku xiran soo dhawaada. Magacaygu waa Cabdirasaaq Daadaa. Ku soo dhawaada qaybtii saddexaad iyo buuggeenii xeerkii Soomaalidii hore. Qareen yeelasho. Markii garta la bilaabayo oo ay labadii dhinac soo hor istaagaan odayada garta qaadaya, waxaa la weydiin jiray dhinacyada ayadoo midba markiisa la weydiinayo in isagu isu doodayo iyo inuu qareen qabsanayo. Waxaana af buuxa lagu dhihi jiray, ma nin baad agmanaysaa mase adiga hadloonaya. Miduu doorto ayaana arrinta lagu wadi jiray, waxayna gartu u qaybsanaan jirtay gar cadaabo iyo gar caadi ah ama gar sokeeye ah. Garta cadaabo waxaa la dhihi jiray oo kale jilib caro, lamana kala kici jirin ilaa laga dhammeeyo. Marba hadday tahay gartu jilib caro, haddayse tahay gartu gar caadi ah, waxaa dhici jirtay ama bannaanayd in dib loo dhigo oo muddo kale loo qabto. Waxaa lagu kala aqoonsan jiray garta inay tahay gar caadi ah iyo in kale unuga xaajadu meesha ay ka timid. Waxaa kaloo la eegi jiray qasiyada ka taagan arrintaas inta ay la eg tahay. Haddii la arko inay keeni karto arrintaasi ama dacwaddaasi haddaan degdeg loo dhammayn dagaal dhex mara laba dhinac ama laba ruux ama xoolo la kala qaado, waxaa la ogaan jiray markaas ama la aqoonsan jiray arrintaas inay tahay gar cadaabo ama jilib caro. Haddiise aysan ka muuqan dacwaddaas wax xamaasad ah amase ayna ka soo unkamin meel xun, waxaa loo aqoonsan jiray inay tahay gar caadi ah. Hababkaas aan soo sheegnay waxay ahaayeen xeer guud ahaaneed oo ay ku dhaqmi jireen Soomaalida oo dhan. Xeer gaar ahaaneed. Soomaalidu waxay lahayd xeer gaar ahaaneed, kaas guud ka sokow. Waxaa jiri jiray in gobol walba ama degmo walba lagu arki jiray xeer hoosaad iyaga u gooni ah. Tusaale ahaan, reer Baraawe wixii ay ka helaan xeebta badda oo soo caariyey ama baddu soo tuftay, xeerkoodu wuxuu ahaa inaan lagu faragelinin ninkii helay oo isagaa qaadan jiray. Isla markaa reer Boosaaso ama xeebaha bari oo dhanba wixii la helo iyagoo ka soo baxay badda, waxay dhihi jireen boqorka ayaa leh, waxayna ka dejiyeen maahmaha ay ku yidhaahdeen bad ka soo bax boqor baa leh. Waxaa la sheegayo oo badda ka soo baxaya waa xoolaha ka lumaya maraakiibta iyo doonyaha badda dhex maraya. Tusaale kale, gabadha reer Hargeysa ama reer Burco waxaa lagu meherin jiray 15 ilaa 20 halaad oo geel ah oo meher loo siin jiray. Gabadha reer Gaalkacyana waxaa lagu meherin jiray marka la guursanayo 20 ilaa 40 neef oo ari ah. Gabadha reer Gadana waxaa lagu meherin jiray sida badan 4 qaalmood oo lo ah. Taasi waxay ku tusaysaa inay jireen xeerar hoose oo kala gaargaar ah, iyadoo isla markaana ay ku wada dhaqmayso Soomaalidu xeerkii guud ahaaneed. Sababta ay u lahaayeen xeerarkaas hoose oo kala gaargaarka ah waxay ahayd in degmo walba ama gobol walba uu lahaan jiray odayo iyo duqeyto amase rag waxgarad ah oo ka shira ama ka taliya arrimihiisa, ayagaana u soo goyn jiray xeerarkooda. Wakhtigaasna uma suurtoobi karin inay meel isugu yimaadaan degmooyinka iyo gobollada oo dhan, maxaa yeelay gaadiid baan jirin, dalkuna wuu kala fogaa. Sidaa darteedna degmo walba odayadeedu waxay soo goyn jireen wixii iyaga dan la noqda ama ay u maleeyaan inay ku dhaqmi karto degmadooda. Xeerkii reer guuraaga. Soomaalidu waxay qarniyadii hore ahaan jirtay gebi ahaanteedaba dad reer miyi ah oo xoolo dhaqato ah. Xeer Soomaaliga asalkiisuna ayaga ayuu ka soo jeeday, sida hidaha iyo dhaqankaba ayaga uu uga soo jeeday. Waxaana ceeb la ahaan jirtay odayadii hore ee Soomaaliyeed oo reer miyiga ahaa inay kala saari waayaan ama heshiin waayaan laba ruux oo isqabatay ama laba qolo oo isqabatay. Waxaa kaloo ceeb la ahaa in gartooda la geeyo magaalo kale. Sidaa darteedna waxay ku dadaali jireen inay daawo u helaan wax alla wixii dhibaato ah oo dhexdooda ka dhaca. Waxay dhihi jireen markii ay dhibaato dhacdo, xaajadu ma curad baa mise waa ugub? Haddii la yidhaahdo waa curad, macnaheedu waxaa weeye horaa loo arki jiray, daawadeedana waa la yaqaanaa. Waxaana lagu daawayn jiray wixii awal lagu daawayn jiray. haddiise la yidhaahdo waa ugub,
macnaheedu waxaa weeye weli lama arag ayadoo kale wixii lagu daaweyn lahaana lama yaqaano in hadda loo fikiro mooyaane. Arrintaas ugubka ah odayadu aad ayay ugu dadaali jireen sidii ay uga heli lahaayeen gar ay ku xukumaan, maxaa yeelay xaaje kasta oo ugub ah aakhirka waxay noqotaa curad. Ugu dambaystana odayadu daawo ayay u heli jireen xaajada ugubka ah. daawade janalka haddaad ku cusub tahay sabskaraib saar, gambaleelkana furo. mahadsanid.